dhaqanka suubanaa jireenka ee soomaalida waa dhaqan dahabiga oo ay kaga tilmaamayeen dadyowga iyo qowmiyadaha ay wada degaan bariga Afrika. inkastoo dhaqamadaasi wanaagsan diinteena islaamka wax badan ay ka waafaqaan, haddana marnaba si dhab ah looma diiwaangelin dunida daafaheedana looma gaarsiin dhaqankaasi wanaagsan. arrintaasi waxay keentay in la arko inteena xun, fowdo magangeliyo doon iyo burcabadeednimo in lagu sunto. dhaqamada sida aadka ugu faanta Soomaalida waxaa ka mid ah martisoorka, kana mid ah dhaqanka suubanaa jireenka ee Soomaalida. dhaqankan oo meel sare ka jooga diinteena suubanaa islaamka ayaa haddana Soomaalidu uu ka mid yahay dhaqamada sida aadka ugu faanto. qorayaal badan oo ajaanib ah Soomaaliya wax ka qoray ayaa sheegay in Soomaalida ay yihiin dadka wanaagsan martisoorka. waxaa dhaqan u ah ummadda Soomaaliyeed inay si fiican u soo dhaweeyaan una sooraan martida, lana wadaagaan wax walba oo markaa reerka loo soo martiyey ee heli karaan. Ibnu Batuuta wuxuu qoraaladiisa ku xusay in Soomaalida uu ku arkay magaalooyinka xeebaha ku teedsanaa ay ahaayeen dad ku martisoora martida hilib iyo caano oo ay Soomaalidu hodan ku ahaayeen. mararka qaar waxaa dhacda in qof uu soo martiyo iyadoo xilligu aad u kulul yahay laguna jiro xilli abaar ah, xooluhuna ay kulan yihiin. taasi oo jirta ayaa haddana waxaa waajib ku ah reerka loo soo martiyey inay sooraan soona dhaweeyaan dadka safarka ah ee soo miciinbiday. caadiyan reeraha miyiga degan waxaa had iyo jeer u soo martiya qof safraya oo waddadii ka ambaday ama meeshuu reerku degan yahay maraya. martidaasi waxay isugu jiri karaan dad xoolo luma raadinaya, dad safar dhul dheera ku socda oo reerka habeenka u hoyanaya, iyo macallimiinta qur-aanka oo doonaya inay reeraha ubadka u baraan qur-aanka kariimka. nolosha dadka reer miyiga ahi had iyo jeer waxay maanka iyo maskaxda ku hayaan xilli kaste inay dad marti ah u soo miciinbidi doonaan. sidaasi daraaddeed waxay xil iska saaraan sidii ay magacooda iyo sharaftooda ay u ilaalin lahaayeen oo ay bulshada ugu dhex ceeboobin. haddii reerku leeyahay geel, waxaa martida loo qoondeeyaa hal ama laba halaad oo irmaan si martida loogu soo dhiso caano. mararka qaarkoodna haddii reerku ladan yahay waxay martidu ku sooraan ama ogolaan neef ariya ama geela, hadba inta tirada dadka soo martiyey ay leegyihiin. xataa haddii xilligu xun yahay waxaa waajib ah in martida la sooro lana soo dhaweeyo ayadoon loo eegin qabiilka, xitaa haddii labada reerood waramada isku sitaan. abwaan yamyam oo ka hadlaya dhaqanka suuban ee Soomaaliga ayaa tudciyo ka mid ah gebigiisa oo uu kaga hadlayo martisoorka Soomaalidu ay ku wanaagsan tahay. waxa uu yidhi: marti gaajo hayso gasiin kale aan loo hayn ayaa waajib gudashada hasha geela ka irmaan loo gowracayo, kale loo dugsiiyaa hilbaha loogu geeyaa. reerka ku wanaagsan martisoorka waxay ahaayeen kuwa loo soo heybsado oo lagu soo irto, masaafirkan isu soo tilmaamo. waxaa weliba dhici jirtay in loo soo gayaan doonto iyadoo la aaminsan yahay inay gob yihiin reerka. sidoo kale qoyska martida ka seexda ayaa ahaa kuwa lagu sheekaysto, gabayo iyo geeraarana laga tiriyo, layskuna wada sheego oo laga weecdo. waaba haddii aan la fangorin oo aan la takoorin, gabdhahoodana la gayaan siijin. dhaqanka Soomaalida waxaa ceeb weyn oo sheeka reebta noqota ku ah waxaa ka mid ah haddii martidu kugu qado ama mudnaanteeda la sii waayo. sidaas aawadeed ayaa Soomaalida qiimihii qadarin gaara siisaa musaafirka u soo mingalo, iyadoo curdan iyo coroolaba guntiga loo xirto maamuuska martida. si gaara haweenka ayaa door muhiima ku lahaa habsami u socodka hawshaasi, waxayna ka mid tahay qodobada marka horeba lagu xulan jiray gabdhaha la guursanayo. gabayaa Yuusuf Maxamed Xirsi oo arrinka ka dardaarmaya wuxuu gabigiisii guur aan kala aado ku yidhi: gool weyn midii loo qaliyo gogol la soo dhooway, gob hadday timaado martidu igu dul gowriirto, weelkeedu tuu gorof yaheen laguba gaadheenin, nin guraan minkii loo dhigay gobi la yaabtaahe, intaan ciil la gow odhan lahaa guur aan kala aado. maadaama aanay jirin isgaarsiin lagala socdo halka qofku soo marayo iyo xilliga uu reerku ku soo beegan yahay ama guuxa gaadiidka oo dadka dareen geliya, waxa qasab ahayd in mar walba marti habaqlaha loo taaghayo. aadaabta martida laftirkeedu waxay lahayd aadaab iyo tartiib ay cidda ku soo gasho, taasoo wax badan ka bedeleen mideena maantay. hooti dalaq iyo waafay xaafadda ma ku xiran yahay salaanta laga bilaabayo. markay martidu shanqadha reeraha soo raacdo ama tilmaamiyo tub ku timaado, waxay isyara taagaan meel reerka ka baxsan iyagoo qof macquul ah soo cid dirsanaya. qofkaasi salaanta islaamka kadib ayuu reerku ku yidhaa: maxaa lagu baryey? reerku ma nabad baa? iyo wixii la mid ah. kadibna u sheega inuu yahay ama ay yihiin dad marti ah. waa haddiise ayna cidi meesha ka garanayn ama tilmaam ay weydiistaan, hadduu jiro qof ama qoys ay bargaranayaan. isla marka martidu soo joogsataba waxaa isxilqaama qof soo dhaweeya oo u dhexeeya dumarka dabka shidaya iyo martida, isagoo kolba ka wardoonaya halka xaalku marayo, si hoosana xawaleeda ugu gubaabinaya inay guntiga dhiisha isaga dhigaan oo martidu qumaati marinkeedu wuxuu yahay u mariyaan. waxaa markaaba dabka lagu tuuraa kirli ama jalmad shaax ah
mararka qaarna laba dab ayaa la iska garab shidaa oo midi waa shaahii dhafoor jabiyaha ahaa midna waxaa lagu kariyaa kalaankal ama beer ka horeeya hilibka caadiga ah ee neefka la loogay waa haddii neef la qalaye ama waa soor hadba say tabartu tahay markay martidu ka farxalato wixii calaf ahaay ee lagu martisooray baa dib loo galaa sheekooyin war iyo wacaal iswidaarsi lagu mitaaneeyey mahmaahooyin murti taariikh iyo kaftan kooban oo midba midka kale ku raaligelinayo haddiiba ay jiraanba waxoogaa gabaabsi ah oo dhankiisa ka yimid sida martiqaadaha oo yidhaahda war waa laydiin hafraye ha noloo ceeb asturo meesha waxba kuma hayne iyo martida oo tidhaahda maya annakaa reerka alaalixinay oo ceer ka dhignay iyana waxaa xusid mudan in martidu ku kala duwan tahay garashada iyo aqliga mararka qaar waxaa dhacday in martidu soo cidgasho iyadoo cidda dabka waxa u saaran ay yihiin inta ay iyagu isugu talagaleen markaanoo kale waxaa dhacda in cidda martida loo yahay ay samaysan nafurnimo oo intii yarta ahayd iyakay carruurta isugu talagaleen martida loo geeyo markii halkan sheekadu maraysa ayaa ah marka garashadii aqliga ay kala hormariso martida oo waxaa dhacda marka qaar in qofka martiga ahi uu laysto dhammaan wixii loo keenay isagoo aan hambayn kanoo kale soomaalidu aad bay u dhaliishaa gabayee mahmaahooyinna waa laga sameeyey oo waxaa ka mid ah 3 ragga ka mid ah lalama rafiiqo ma horeeye mahasaawe iyo mahambeeye oo loola jeedo kaan ciddii martida soortay aan waxba dib ugu celin ee haynsada halihii loo keenay guntii gunaanadkii gabagabadii waxaan filayaa in qaar badan oo inaga madahi ay dib u kocdeen noloshii reer miyiga oo ay ku soo barbaareen halka kuwii aan nasiibka u helin aan filayo inay jeclaysteen qaabka xadaaradda iyo ilbaxnimada huwan ee reer miyigeennu nolosha u kala agaasimi jireen xilli uu yaraa adeegyada asaasiga ah ay haysteen reer miyigeennu waad ku mahadsantahay daawashada iyo la socodka barnaamijka wabilaahi tawfiiq